marka ciidamadu sida Allah socotaan hawlgalladoodu waxay ku salaysan yihiin marxaladda markaa jirta iyo xaaladda markaas taagan gobolka Shabeellaha Hoose labada Shabeellaba iyo jubbooyinka qaybo kamid ah sida Allah socotaan waa dul carro madow waxa lagu jira xilli roobaadkii hawlgalladeennii socda waxa hakad geliyay cimilada lagu jiro xilli roobaadkii lagu jira taas ayaa hakad gelisay ayadana muxuu ay sheegay sidoo kale gaabisna ma gelin meelo kale oo dalka kamid ah ay hawlgallo ka socdaan ayadana waa u diyaar garoobaynaa cimiladu markay noo saamaxdaan hawlgalkaas meeshiisa uu sii socodaya ilaa intiisa ay taliye Odawa oo ka jawaabay eedo culus oo loo jeediyay kadib markii ay ciidankii dawladdu ka baxeen magaalada Wabxo oo dhawaan laga qabsaday al-shabaab eedda ah in taliye Odawa uu isagu lahaa amarka ay ciidanka dawladdu uga baxeen Wabxo oo qabsashadeeda dhib badan laga maray ayaa waxa jeedinaya dadka deegaanka iyo saraakiil ciidan oo kamid ahaa raggii qabtay Wabxo General Odawa oo isaga eedda loo jeediyay waxa uu sheegay in xeelad dagaal iyo dib u gurasho looga baxay magaalada Wabxo sidoo kale ciidanka qabtay Wabxo oo ah kumaandooska Danab waxay fuliyeen waajibaadkooda shaqo oo ah inay weerar qaadaan oo ay burburiyaan fariisimaha al-shabaab deegaanka ay qabtaan ay ku wareejiyaan ciidanka militariga Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka waana sababta Wabxo looga baxay oo lagu sheegay in ciidan yari iyo dadka deegaanka waanu diyaarsanayn si joogida Wabxo sidoo kale wax cusub ma aha in ciidanka dawladda Soomaaliya ay al-shabaab ka qabsadaan deegaano muhiim ah haddana ay dib uga laabtaan waxaase cusub in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu ay doonayaan inay dhawaan xilka ka qaadaan General Odawa Yuusuf Raage waxayna u sameynayaan eedo uusan lahayn ama ay dad kale leeyihiin waxaana dhawaan soo baxday in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay miiska u saaran tahay warqadii lagu bedeli lahaa taliye Odawa iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Xijaar waana mid keentay in taliyaasha ciidanka waqtigan loo jeediyo eedo aysan lahayn waana mid la rabo in dadka looga mashquuliyo xilka qaadista lala damacsan yahay dhinaca kalena kooxda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud marna kuma qanacsanayn si joogitaanka Odawa iyo Xijaar laakiinse waxay lahaayeen dadkii ay ku bedeli lahaayeen ama ummaddu ay la qaadan lahayd iyadoo la isku fahmi waayay qabiilada iyo shakhsiyaadka loo magacaabayo xilalkan muhiimka ah sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegay inuu aad u raadinayay inuu taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya ka dhigo qaar kamid ah dhalinyaradii tababarka ugu maqnayd wadanka Eritrea oo muddo halkaas tababar sare ku qaadanayay ayagoo uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laba jeer booqday ciidanka ku maqan Eritrea sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan taliyaha ciidanka badda Soomaaliya u magacaabay mid kamid ah dhalinyaradii tababarka ugu maqnaa wadanka Eritrea oo safarkiisii ugu horeeyay ka soo raacay wadanka Eritrea madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu muuqdaa mid si weyn uga booday saraakiishii la yaqaanay ee soo shaqeeyay wuxuuna hadda xoogga saarayaa sidii uu heli lahaa saraakiil wax bartay oo dhalinyaro ah oo la jaan qaadi karta siyaasadiisa kooxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay maraajacaynayaan siyaasadii madaxweynihii ka horeeyay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sidaan oo kale saraakiil dhalinyaro ah oo tababar ka soo baxay u dhiibay xilalka muhiimka ah ee dalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisu waxay u muuqdaan kuwa hadda raacay dhabihii uu maray madaxweynihii ka horeeyay ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintan oo aan ku eeganay eedaha loo jeediyay General Odawa